uma dulqaadan doonno mana sii eegan doonno tacadiyada ka soconaya Ceerigaabo iyo gobolka Sanaag. Ceerigaabo waa magaalo SSC oo caasimadii gobolka Sanaag, waa magaalo ka tirsan bulweynaha SSC Khaatumo. mahad iska leh mahadda Ilaahay ka sokow. aad baan ugu faraxsanahay in saaka aynu joogno oo soo booqannay rugtii taliska ciidamadeenna ee aaga gobolka Cayn. sharaf bay noo tahay inaannu maanta hor joogno saraakiil xigeenadii iyo ciidamadii difaaca SSC khaasatan gobolka Cayn. sharaf bay noo tahay inaan soo booqanno xero ciidan tii ugu faca weynayd ugu taariikhda weynayd ee ku taalay deegaanada SSC Khaatumo. xeradan khaasatan iyo guud ahaan ciidamada gobolka Cayn waxay ku suntan yihiin muddo dheer halgan taariikhiya iyo difaac ay difaacayeen xuquuqda iyo nabadgelyada iyo badqabka dadka iyo deegaanada SSC Khaatumo. hambalyaan leeyahay halgankii aad soo gasheen ee taariikhiga ahaa waxaynu ka markhaatinahay inaad guul ka soo hoyseen. haddii shalay 2023 bishii labaad 6 February uu ka bilaabmay gobolka soo halganku, waxaa marag madoona oo cid waliba ka dhageysan tahay dhowe iyo dheeraba in halganka gobolka Cayn iyo ciidankan difaacoodu iyo khaasatan xeradan maanta aynu joogno inuu halganku soo taxnaa muddo dheer. waxaynu ka dhageysannahay intii dhiigooda u hurtay u goodgashay iyagoo xorriyaddooda iyo sharafkooda deegaankooda difaacayay. ilaahay waxaanu uga baryaynaa shuhadadeennii ku baxday halgankii dheeraa aynu soo gallay in ilaahay u naxariisto subxaana wa tacaala. intii ku dhaawacantayna ilaahay subxaana wa tacaala u boogadhayo. waan ogahay ragga halkan fadhiya inay ku jiraan kuwo mar iyo laba iyo ka badanba ku dhaawacmay halganka taariikhiga ah. maantana halkan waxay u fadhiyaan u diyaar yihiin inay qayb ka noqdaan ama ay dhammaystiraan hayaankii difaaca dadkeenna iyo dalkeenna. waynu wada ognahay duruufta qaraadh ee adag ay ciidamadeennu ku sugan yihiin oo ku shaqaynayaan. haddana ciidankeennu waxay yihiin lafdhabarta koowaad ee aynu ku taagannahay jiritaankeennuna ku salaysnaan karayo. deegaanadeenna tan waxaynu uga baahannahay nabad, deriskana waxaynu ugu baaqaynaa nabad. nabaddu kuma timaaddo oo keliya in lagu baaqo oo la jeclaysto. waxaa nabad hela qofka la arko in looga baahan yahay in laga nabad galo. taasoo macnaheedu yahay haddii ciidamadan iyo agabka ay hayaan iyo siday heeganka ugu yihiin difaaca aan la xoojin oo cid waliba ayan u muuqan waxa ay galaan iyo waxa ay gudaan, nabaddu iska iman mayso. ciidamadeenu dhisaynaa, waa qalabaynaynaa, waa xoojinaynaa ilahay idinka insha allahu tacaala si aynu nabad ugu helaayno. taariikhaha adduunka soo maray oo dhan ciddii aan u diyaar garoobin inay nabad ku noolaato nabad ma heshaay. si dadkeenna, degaankeenna iyo dalkeennu ay nabad u helaan waa in ciidamadeenna awooddooda waxqabad iyo difaac aynu kor u qaadnaa. sida keliya ee maanta geeska Afrika iyo Soomaaliya nabadda laga heli karaya waa sidaa. macnaheedu maaha inaynu u taagannahay colaad, inaynu u taagannahay qalalaasa joogtaa. waxaynu u taagannahay nabad, laynaga nabad galo, isla markaana aynu nabad ku helo guryaheenna oo aynaan baryin. cadowgii dhulkeenna dhibaatada ka geystay faraha badan leh isma beddelin. waa isagii, waa halkiisii, waa doonistiisii. sidaas si la mida
halyeeyada SSC Khaatumo iyo ciidamadeennu waa halkoodii iyo halgankoodii iyo difaacoodii waxaynu xaqiijinaynaa dhammaan deegaanada SSC Khaatumo oo dhan in dadkeenna ku noole ay nabadgelyo ku helaan laga soo bilaabo Sanaag ilaa Cayn oo hadda aynu joogno waad maqlaysaan shaqaaqooyin iyo colaado hor loo ka bilaabmay gobolka Sanaag khaasatan magaalada Ceerigaabo waxaan ugu baaqaynaa maleeshiyaadka dadkayga dhibaatada ugu geysanaya magaalada Ceerigaabo gudaheeda inay ka waantoobaan in la soo gaaray xilliga ay dib u joogsan lahaayeen xilliga ay dhibaatada joojin lahaayeen haddii ayaan joojin dhibaatada waxaan ballan qaadaynaa gacan kasta oo xaqdarro ah oo dadkeena dhibaato u goysata inaynu goyn doonno gacanta haddii Ilaahay ka dhigo uma dul qaadan doonno mana sii eegan doonno tacadiyada ka soconaya Ceerigaabo iyo gobolka Sanaag Ceerigaabo waa magaalo SSC waa caasimaddii gobolka Sanaag waa magaalo ka tirsan bulweynaha SSC Khaatumo hadda iyo horba waxaa ku nool kuna noolaan jiray qaybaha ugu muhiimsan shacab weynaha reer SSC Khaatumo waxaanu leenahay waa idinla joognaa waa idin maqannahay garabkiina aanu hayaan waxaan ballan qaadaynaa inaad guryihiina nabadgelyo ku heshaan inaad guryihiina ku badbaadaan in aanay dhicin mar dambe qax iyo barakac dadkaa loo geysto reer SSC meelay joogaanna waxaan ugu baaqayaa inay u diyaar garoobaan sidii deegaanadeenna loo gaadhsiin lahaa nabadgelyo iyo amni buuxa gobolka Cayn ciidamada difaaca kala duwan ee jooga waxaan ugu hambalyaynayaa kaalintii lama ilaawaanka ahayd iyo dowrka ay ku lahaayeen difaaca qarannimadeenna iyo sharafkeenna waxaa inoo ballan ah guul iyo midnimo iyo isku tashi taasaynu kaga badbaadi karaynaa dhibaatooyinka soconaya kuna gaadhi karaa himiladeenna iyo halka aynu doonaynaayno ilaahay ha u naxariisto xerada tan taariikhdeeda waynu wada garanaynaa waxaa aasaasay oo dhidibada u taagay oo ciidankan sii dhisay Alle ya raxmo Korneyl Bashiir Baydan iyo ku-xigeenkiisii Ismaaciil Xaashi oo uu weliyo cahdigiisina halkan fadhiyo aan leeyahay waxay ku sifoobeen raggaasi taariikh guuna oo reer SSC iyo Soomaaliba baaldahaba kaga jirta waxa halka yaala waa agabkii ciidamadii xoogga dalka ee Soomaaliyeed oo ay badbaadiyeen meel ku ururiyeen agabka iyo raggii watayba waa kuwa halkan maanta horteeda fadhiya waxaanu uga abaal haynaa waanu taariikhda ku xusi doonnaa oo jiilasheena kala dhaxalsiin doonnaa dowrkii ay raggaasi qaateen iyo muhiimaddii ay isu taageen xilli Soomaalinimada iyo qarannimaduba ay gabaabsi tahay Ilaahay ha u naxariisto halgamayaal bay ahaayeen meel weyn kaga yaalla waxaan rajaynayaa in himiladoodii iyo geedigay soo bilaabeen aynan ka fadhiisan doonin ilaa aynu ka midho dhalinayno guulaystaan idin leeyahay midnimo aynoo ballana iyo difaac joogta ah waad mahadsantihiin